isbedel weyn oo saacadaha soo aadan ka dhacaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ma dhaba inuu iscasilayo taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad yaaysa tahay cid loo magacaabayo xilka muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa daawade xog walba oo aad kaga baahan tahay isbedelka ka dhacaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA laakiin intaan u gudagelin muuqaalka like saara si sheer oo la wadaag saaxiibada bogan follow soo dhee si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ku bilaawne waxa la filayaa in goordhow uu ka dhaco isbedel weyn hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA isbedelkani ayaana waxa uu saameyn ku yeelan doonaa taliyaha ugu sareeya ee hay-addani waxayna wararku ay sheegayaan in taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad uu iska casilayo xilka taliyaha hay-addaasi waxayna xoguhu ay tilmaamayaan in sababta iscasilaadiisa ay ka dambeyso maadaama uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug isla markaana loolan adag uu kala kulmi doono siyaasiyiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug oo qayb ka yahay madaxweynaha haatan talada Galmudug haya Axmed Cabdi Kaariyo Qorqora Liibaan Shuluq iyo sidoo kaleeto mas'uuliyiin kaleeto oo daneynaya inay qabtaan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo mudooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kaleeto deegaanada dowlad goboleedka Galmudug Liibaan Shuluq ayaa sidoo kaleeto qayb ka ah mas'uuliyiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug kaasi oo dowladtus military iyo sidoo kaleeto mid siyaasadeedba sameynayay maalmihii la soo dhaafay waxayna xoguhu ay tilmaamayaan in Mahad Maxamed Salaad uu isaguna qayb ka yahay dadka sida aadka u qotada dheer loogu saadaalinayo inay noqdaan hoggaanka maamulka Galmudug waxaana sidoo kale xogaha soo baxaya ay tibaaxayaan in Mahad Maxamed Salaad oo hadda ah taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay dowladda dhexe ee Soomaaliya qaasatan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la doonayay qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug booska Mahad Maxamed Salaad oo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxa loo wadaa in lagu bedelo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo lagu naanay Sahari Magwaya Axmed Macalin Fiqi ayaa qayb waxa uu ka yahay siyaasiyiinta sida dhow ula shaqeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana sida qotada dheer uu aaminsan yahay markii laga soo tago siyaasiyiin kooban oo uu qayb ka yahay Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi waxaana sidoo kale qayb ka ah mas'uuliyiinta loo saadaalinayo in xilkan ay qabtaan saraakiil ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug maadaama taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad uu ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaana sidoo kale Sahari Magwaya oo soo qabtay xilal kala duwan oo qayb ay ka tahay wasaaradaha arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo ka yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxaana hadda loo wadaa inuu noqdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA hadii uu wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu xilkaani qabto waxa la filanayaa in isbedel weyn uu ka dhaco hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA daawade hadii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si sheergaray oo la wadaag saaxiibada bogan follow soo dhee sidoo kale qaybta hoose ee faallada inagula wadaag aragtidaada macquul ma tahay in loo magacaabo xilka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Axmed Macalin Fiqi mase qarsoomi doonaan xogaha hay-addani oo aan loogu talagelin inta badan inay banaanka yimaadaan